filimka wuxuu ku saabsan yahay gabar magaceeda ahaa Jennifer waa gabar qoraayada sheekada cusub soo qorto xaadisa guri meel cidla ku yaala waxaan ka kareenin in la dhaho magaciisa Early Jennifer waxay istaagtay meesheeda lagu shubto halkaas ay kula kulmayso saddex wiil oo lagu magacaabo magacyadooda Andy, Stanley iyo Johnny Jennifer markay gurigeeda aado waxay bilaabtay in alaabta kala raasisto iyadoo waxay u fariisanaysaa inay bilowdo qoraal gurigeeda waxa ka xumaanaysa qasabadii waxay wacsanayeen guriga kireeyay waxayna ku oranaysaa wuxuu u soo diray in la dhaho magaciisa Matthew kaas oo hagaajinaya markii uu hagaajinay waxa uu sheegaysaa in foonkeeda suuliga kaga dhacay waxaan arknaa saddex wiil oo wada fadhiya waa saaxiibo xun waxay sameeyeen xayawaankii dhibaan kadibna fiideo way ka duubaan iyaga waxa uu imanayay Matthew waxaan arknaa saddex wiil oo guriga soo galay Matthew markii hore wuxuu sheegay in foonkeeda iyada suuliga kaga dhacay iyagoo fursada ka faa'iideysanay markii gurigeeda soo galaan waxay u sheegaysaa in booliis wacay wuxuu ogyahay in foon haysan kadibna waxay oranaysaa wax walba guriga yaala qaata waxay weydiinayaan maxaa kan ku keenay waxay u sheegaysaa in saaxiibkeed mar dhow imanayo shaqana waxa kan u timi waxay ogyihiin in been u sheegayso sharaab ay siinayaan kadibna way farxumeynayaan way ka baxsanaysaa waxaana la kulmaysaa askari lahaa sheriff stock waxaana la socday ninkii guriga la kireeyay askariga waa soo raacaya waxaanu la saaxiibay isagu wiilashii shantoodu way faraxmeynayaan fiideo way ka duubayeen way dilayaan ma garanayso waxay sameeyay wax iska tuuraysa wabiga xabad la dhacayaan waxayna moodayeen inay dhimatay waxa lagu amray Stanley inuu qaato cajalada duubista si uu takhaluso waxaan shaqada ku oranay qaban ninka askariga ha si uu hubiyay inuu wax cadeyn lagu helin wuxuu ogaanay Matthew inuu ag fadhiyo wabiga wuxuu ku oranay saddexdiina uu dhimanay hadduu sag wax sheego Stanley wuxuu sheegay inuu been u sheegay markii uu keenay cajalada oo ay maneed caadigeedna laga xaday oo uu garanay cid haday kadibna John ayaa xanaaqaya ula dagaalamaya John isagoo ku fadhiyo gurigiisa wuxuu maqlayaa cod wuxuu soo baxay dibadda wuxuu arkay shimbir dhimatay wuxuu arkayaa sidii maalinta hore lagu sameeyay Jennifer ku sameeyay kor lagu sameeyo isagoo wuxuu imanay saddex wiil wuxuu ogaanay cajaladii taalo wuxuu ugu handaday inuu dilayo John ayaa dejinaya isagoo wuxuu bilaabay inuu la baxo eer suuqa takhaluso cadeyntiisa ugu dambeysay sababtoo ah wuxuu ahaa qofka kaliya ogaa markuu raacay Jennifer isagoo joog meel u dhow guriga Jennifer ayuu maqlayaa cod kadibna guriga galaya kadib wuxuu ogaanay inay nooshahay xilxiraysaa wayna ciijinaysaa Andy Stanley waxay bilaabay inay baaraan Matthew codka ayay maqlayaan codka ayuu raacay wuxuuna galaya guri laga guuray Stanley wuxuu la kulmay Jennifer waxayna ogyahay in ka arkosan doonto kooga horeeyo dilis oranaya iyada kaga horeynaysa Andy uu soo noqday codka markuu maqlo Jennifer ayaa madaxa ku dhufanaysa uu suuxay wuxuu soo kacay isagoo xidhan oo biyo hoostiisa yaalaan Stanley waxay ku xiraysaa geesi ay fiideo uga duubeen ayay fiideo uga duubaysaa waxayna furaysaa indhihiisa waxayna ku adkeynaysaa hirbado waxay keenaysaa kalluun waxay ku dulshubaysaa calooshiisa kadibna waxay isaga tagaysaa haddana waxay aadaysaa Andy markaas ayay Jennifer bilaabaysaa inay wajigiisa biyo ku geliso kadibna waxay ku shubaysaa acid Stanley shimbiriha ayaa cunaya Andyna wajigiiba gubanaya oo dhimanaya John ayaa madaxa ku dhufanaysaa meel ay ku xirxiraysaa ilkahay midmadowga soo koraysaa kadibna maqas ayay gelinaysaa uu dhimanaya isaguna Stock ay xaaskiisa soo wacso waxay noo sheegaysaa in macluumaad cusub guriga soo gaadhay kadibna wuxuu ogaanay in Jennifer xaaskiisa khiyaantay oo ka arkosan doonto gurigu imanay wuxuu ogaanay in gabadhiisa yaraad ka xasatay markuu soo waayay wuxuu ku soo noqonay gaarigiisa Jennifer madaxa ay ku dhufanaysaa markuu miirsado wuxuu isku soo arkayaa isagoo xidhan waxayna soo muuqanaysaa in Jennifer baaskoolada dhabarkiisa dhigtay waxayna gacmihiisa Matthew ku xidhay silsilad isagoo Matthew miir la yahay Jennifer waxay istaagaysaa gadaashiisa waxayna u muuqataa inay ku faraxsatay waxa sameysay waxayna soo baxaysaa guriga iyadoo halka ka tagaysa markii Matthew miirsto bilaabay inuu dhaqaaqo waxaana dhacaysa xabad taasoo dilaysa Stock kadibna Jennifer waxay u soo noqonaysaa Matthew isagana way dilaysaa sidaas ayay Jennifer ugu arkaysaa shantii qof iyadoo adeegsanaysa xaqiiqeeda